Kooxda Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay muuqaal cusub oo ay kaga hadlayso weerarkii qorshaysnaa ee lagu qaaday xarunta godka Jilacow, iyadoo soo bandhigtay xog xasaasi ah oo ku saabsan shakhsiyaadkii howlgalkaasi fuliyay. Kooxda ayaa xaqiijisay in raggii weerarkaasi fuliyay uu ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cali oo ahaa wiilka uu dhalay afhayeenka kooxda, Cali Maxamuud Raage Cali Dheere. Sidoo kale, kooxdu waxa ay shaacisay in weerarkaasi ay ka qayb qaateen 2 nin oo ajaanib ah, kuwaas oo midkood u dhashay dalka Tansaaniya, halka midka kalena uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Itoobiya, gaar ahaan qowmiyadda Oromada. Weerarkan oo dhacay taariikhdu markii ay ahayd 5tii Oktoobar sanadii 2025 ayaa loo agaasimay qaab xeeladaysan, iyadoo kooxda ay adeegsatay gaari lagu buufiyay calaamadda hay'adda nabad sugidda ee NISA. Sidoo kale, xubnaha weerarka fuliyay ayaa xirnaa dareeska rasmiga ah ee hay'adda nabad sugidda si ay ugu fududaato gudbinta iyo marin habaabinta laamaha ammaanka. Rajo TV, Shaakir Fila Gurceel.